Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Maanta waxaan ka sheekeyn doonaa ictiraafka ay aqoonsatay Yahuudda ama Israa'iil Somaliland. Ma wuxuu ka dhigan yahay in Somaliland loo aqoonsaday waddan ka mid ah Afrika ee ay saas ictiraaf ku heshay, ama kala qaybinta Soomaaliya, Israa'iil oo soo degto Berbera, halkaasina ay ka dhalato dagaallo foolka fool ah oo ay halkaasi ka hesho meel muhiim ah ama marin muhiim ah ee Baabul Mandab oo halkaasina ay ka duqeyso Xuutiyiinta Yemen. Inta aan u guda gelin muuqaalkeena maanta taariikhdu waxay ku aadan tahay 31 bisha 12aad 2025. waa maalintii ugu dambeysay ee sanadkan ee 2025. marka ma ka faa'iidaystay sanadkan suu ku ahaa commentiga noogu soo qorbal sanadka cusubna inaa kusoo qoratid meel Happy New Year waa qalad weyn. Merry Christmas-kii waxaa soo dabaaldega 25 December inkastoo hadda la soo dhaafay. Marka ka digtoono waxaas waa sharci gaalo. sanadka cusubna ilaahay kuwa ka faa'iidaysta naga dhigo, sanadkii dhammaadayna ilaahay noo dambi dhaafo. Wabilaahi tawfiiq. 2 maalin ka hor Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay toos u aqoonsatay Somaliland, iyadoo khadka moobilka ay iskula hadleen ra'iisul wasaaraha Yahuudda ama Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo la hadlaya madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. Halkaasina waxay ku ballan qaadeen inay iskaashi dowladnimo, difaac, amni inay iswada siin doonaan. Marka Israa'iil waxaasi oo dhan ayadoon Somaliland waxba uga bedelanayn ma siin doontaa. Runta iska cad waxay tahay in ummadaha muslimiinta ah la kala qaybiyo, la kala gogooyo. Israa'iilna ay Soomaaliya ka dhigto meel sida bariga dhexe dowladaha Carabta inay isku jeedisay ayada ay ka tahay libaaxka bannaanka degay. Hadda ay u soo leexiso dhinaca geeska Afrika, ayada iyo Itoobiya iyo Somalilandna ay ka dhigto xulufo. Soomaaliya iyo Xuutiyiinta iyo geeskaasna ay ka weerarto. Somalilandna ay uga gabato waxaan idin siin doonaa ictiraaf, walaalihiin ayaan nahay, waxyaabo fara badan aan iska kaalmaysanaynaa. waxaana arkaynay dad fara badan oo Somaliland kasoo jeedo ee gobollada waqooyi dabaaldegayo calanka Yahuudda wato. Anigu waa ognahay in Yahuudda noogala digay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa. Yahuudda iyo nasaarada ha ka dhiganina saaxiibo ama weliyo uu Ilaahay nooga digay, iyadoo aan ognahay in walaalaheena reer Falastiin tan ay ku dhigtay aan ognahay 80,000 oo qof 80,000 oo qof oo muslimiin ah inay gaajisiisay, toos u dishay. 80,000 toos ay u dishay, intaasina gaajo ay u dhinteen. ilaa hadda qaar xitaa meydadkooda ay ku duugan yihiin guryo lagu soo dumiyey. Waddan Carab ahna ay ka hadli la'dahay hadda aanu u aqoonsanno Israa'iil inay soo degto qayb ka mid ah Soomaaliya. Haddana walaalaheen reer Yemen ay duqeyso ayadoo la dhahayo raggaas waa argagixiso, waa Xuutiyiin. Anaga iyo Xuutiyiinta waxba nagama dhexeeyaan, waa la ogyahay. Marka Israa'iil inay aqoonsato Somaliland waxyaabo fara badan oo ku hoos joogan. Waxay rabtaa inay hubkeeda meesha keento, dagaal toos ah ay meeshaasi ka dhaliso. Hargeysa oo ahayd meeshii ugu horreysay ee laga taagay calanka Soomaaliya, maantana inuu ku xaragoonayo calanka Yahuudda. Soomaalida iyo Yahuuddana aan ognahay meel ay kala joogaan naceebka. Yahuudda waa waddanka keliya ay dhahay, Soomaalida waa waddanka adduunka ugu neceb, waayo waxay isku caayaanba Yahuud. Magaceygayba isku caayaan Yahuud, qofkaas waa Yahuud camal bay isdhahaan. Maanta meeshii ugu horreysay calanka Soomaaliya laga taagay in Yahuud ay ku xaragoonayso calankooda laga taagay, miyaysan foolxumo ahayn? Meeshii ugu horreysay calanka Soomaaliya laga taagay in maanta aan laga taagi karin, waxyaabo fara badan ay isbedeleen aan ognahay. Marka kala qaybinta Soomaaliya, hadda haddii Somaliland ay baxdo, maxaa xiga? Jubbaland iyo Puntlandna waa xigaan. Waxaa u malayn in Banaadir bes iyo gobollo kale Soomaaliya oo dhan inay Muqdisho ka soo hari doonto. Marka meel buur ayaa laga ridayaa walaalaheen reer Somaliland. Waxaan leenahay Yahuuddaas ka digtoonaada. Waa dadka ugu badan ee aan ballamaha oofinin ee ballanta ka baxa. qof muslim aan arki karin in maanta la isku soo dhaweeyana waa foolxumo weyn. Dowladaha Carabta ee Soomaaliya aaminaadda ku qabayna
maanta waa aragnaa dowladaha carabta say dhahayaan ama dadkaana muslimiin ah yahuudda soo dhaweysanayo dadka walaalahood gumaaday. Marka waxaanoo dhan Soomaaliya oo dhan bay meel hoose ka ridaysaa. Walaalayaalow ha laga digtoonaado ictiraaf iyo raxmad raay Soomaali weyn inaan raadinaa rabnaa dhulka naga maqan inaan raadsano. Marka in anaga dhexdeena isku soo jeesano oo la dhaho kanna waa Somaliland, kanna waa Puntland, kanna waa Galmudug. Waxaas waa foolxumo weyn waaye marka laga digtoonaado. Wabillahi tawfiiq inta muuqaalka uga baxaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.